marba haddii caalanka la arko waa in salaanta la saaro sababtoo caalanka waa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتكم حالين جنالك عمر كي يوتيوب هبين وناكسر ولالكينا عاوهدو إلهي كرا النقضة وحن جعلها إنا إذن سوق بيو برنامج كيني رياكشن كأها كل فنان عانا بالفضل أن إنت أنه هردعن واحد لك عصنا يا إنا فيديو قهدوك سوق راشر قريس اللايتي كومنتي وهالكايا ولالك خالي أنكو حنا جنالك عمر كي يوتيوب بالفضل أدين وحن كعصنا يا إنا برسو بخطو جنالك عمر كيو سبسكرايب كناتا وتقبليل كنات كودر سيرا دون خطو ولا لا كحرين جنالك عمر كيو مسنا تيم عمر كيو بل إن شاء الله هدو إلهي كرالي النخضو عاو واحد جعلها إنا نيسود ديو مسري أكشن خالي أنكبحنو فنان كينا عانكا إلو يخان محلها خضر إبراهيم خضر كيو كل عاو واحد جعلها إنا سومالوين لو ذاقو مسنا أن لو ذاقو تيم عمر كيو إنا لو ذاقو برنامج كان سوابتو أنا واحد مرة اللي جعلها يا واحد تهي وحي مركز أنا نقول عصب إنا إذن لو ذاقنا هدو إلهي كرالي النخضو عاون وحا كو كالنت كو نوجر ayaa waxay tahay Khadar Ibrahim oo u qaaday hees misna u qaaday calanka Soomaaliya asigoo mis waqti xaadirka shabahayo ciidamada dalka misna ciidamada xoogga dalka Soomaaliya asigoo shabahayo wuxuuna wataa astaanta qaranka labiska militariga ayuu labisay kulli labisaantiisa ma sha Allah yaa idin hordhicin bil fadlan ila daawada waxaan soo dhigayaa qaybta hoose team Umar Keyo وديك سبحان ما بوحو شاشته كسو قلي أسيقو هردايو مسنا وابا نين رير بوحا كل عيدنا واتقانين مر والبا هدو قريس الجو waxay tahay xiliga la soo wacayo warka ma hayo mar walba waxa la rabaa inuu diyaar u noqdo haduu telefoon kaga soo dhaco dhanka salbigiisa masaxafiiskooda telefoon kaga soo dhaco asigoo diyaar u ahayn hadan waxa la rabaa inuu mar walba diyaar noqdo kulli Khadar Ibrahim oo saan u jeedno waa xawaay qof family maanta laba caruur oo joogtay xaas uu leeyahay family qurux badan waay hadan wuxuu diyaar u yahay ayaa waxay tahay inuu u dagaalamo dadkiisa iyo dalkiisa horto Khadar Ibrahim waa qaabkan ka sheegayna hadaayay markuu soo kacay telefoon loo soo diray telefoonki uu dhigta saartay midna waxaan maleenayaa in la dhahay kulay soo diyaari waa safarkaaga soo galay labiskiisa inuu soo qaadan doonaan maleenayaa kulay hadda igu muuqata waxay tahay asigoon musqushi aydan ayuu wuxuu u gudbay dhanka armaajada wuxuuna soo qaatay waani la arkaysay labiskii ciidamada soo qaatay bal kulay waan si soconaynaa ودي horta xaaskiisa su'aal weydiisay misna ayadoo afka kala hadlinay gacanta ka hadasho maxaa jira camal saan maxay mideeda kale wuxuu la soo kacay waxay tahay labiski markay aragtayna kulay way kharracmata xaasan waa taqaaniin mar hadii aragtay ninkeedo waqti xadarka labiski ciidamada diyaar u waxay ka walwalaysaa waxay tahay haduu markaa labiska qaat waa inaan istaagayno dalkiisa dadkiisa inuu daafac diyaar u ah hadana wadiga kalma hadlino madax un boo nuujiyay wuxuuna diyaar u yahay saan dareemay inuu وهي بعد ما وحو معناه isla markii bilaabo waxay tahay eriyada ugu horeysay dalkayga hooyo sababtoo xaastii wuxuu qancina dalkiisa hooyo inay wax walba kaga weyn yihiin faan wax walba oo markaas asiga dhaqaaqay hamigiisa u yahay inay tahay dalkiisa hooyo oo san tilaabo kale diidin karin midaas ay tahay nagarno istaagi karin ilaa ruuxa doo marnaba qarannimo u soo istaagaya waxay tahay inay marnaba laga hor istaagi karin ilaa wadada qarannimada uu taagay waxay tahay wada oo markaas inuu ku daafaco dalkiisa بس نحن هذا وحو هوري وسي دقاقة يا واحد تاع عروتي بلاسي وذا أرك ودي وعتانية جاو سببتها جاو مر هدام مخشي وانا قانا جاو مر بهدي سوقش ومع سلامة عمل ninkii waa hambagiisa dush u saaray labiskiisa oo ka wata reerkii waa jaasaas ku mac salaamay wuxuu diyaar u yahay waxay tahay
kii waxaan dhila run ahaantii waxa waa beeleed maartay ina ciidanimada maartay isku rax labis oo seeskaagan waa lagu dhiibay waxa lagu labisan waa qaab maartay ciidanimo aad iyo aad u dhameystiran oo waxba ka dhineen bistoolada dhinaca kugu xiran koofideeda guduuda ka wadata shaatiga xataa magacaaga lagu qoray xataa kulli ma akhar inaad ciidan tahay oo ma garan karo laakiinse waa labiska waad soo saaraysaa absolute dhankay waxaan ku leeyahay kulli military noqon ku dhila marba hadii caalanka la arko waa in salaanta la saaray sababtoo caalanka waa midka anaga dhan ugu qaaliyaha kaasna waa mid anaga xishmad iyo nidaam iyo intaba naga mudan calankeena hadda aran waa inaan u wada istaagno Soomaaliya meel bay joogto Khadri Ibrahim calankii oo gacanta ku qaaday hogaamiyada asiga noqday ciidanka asiga horseed u noqday oo wuxuu diyaar u yahay waxa taa dalkiisa inuu dhulka ka qaado kor u qaado waa mid mar walba ma aragtay in ku dayasho badan laga sameeyo sababtoo waxay tahay dalkaaga ina mar walba jeclaato ha ku faanin dal aan dalkaaga een haddaad ku faantay bir banana soo dhacaysa تريدنا عادي إنه أخذنيسا absolutely تريدنا عادي إنه نوال بكرنا ما يستيرن وأخذنيسا مدة كلنا هوريا جيم وخذيسا جيركي وعوا ودي أرسنا وتسيد ما يستيريسا كله وا فيديو كان أرتو وا مد ملول بالله أمان وبهانو وصوبته واحد تهاي واحد موجينيسا يا واحد تهاي ما ركتي علن كينا مدة كلبس كاد وضطو يدل جعل كنماذا صوبته وحل بوحة مهم كا دل جعل نماذا حداد مربط دل كا جعشة واحد تا وخوف ديجيس أما هدول كيس هوايا مسويديس سيدا نبتو جعل لكن سدان دل كا جعل يا دباتو وحلادها واحد تهاي أديكون هواي هذا جعلين صوبته ماشى أديك فرع كي ماضي ومرل بإني كاجا جوكناتا ميلها كريتو إبراهيم وحوا خضر إبراهيم كيو أنا حتى دولكين وأتاجنا هاي ومد أمرل بوستاكسنا هاي أو مرل بانكو جوابسنا إلين واحد تهاي نلشينا إنا مرل بكهر مننا دولكينا سببتو دولكين ومد مرل بإنا أوه جانسنو أوهر سيدنا فرحدنا محل النظام كينا هستان كل يوم أنت واحد تاوانا يسايا واحد تاي ما أن هيس رومانتيك ما أنت لا هايو لكن سوا هيس ما أنت وقت حاضر كان كسابسن dhulkaaga hooyo sababtoo heesta magaceeda asal loo dhahay daljir macnaheedu qof walba uu fahmi karaa ilaan heesta uma taagno maanta hees iska baashaala mise iska bodbooday maan waa hees mutaxadarka markii laga sheekeynaa xataa u baahan tahay in fadhin aan loogu sheekeeyo kulli tiim Cumarkee waxa idin leeyahay balan sii socono sababtoo marba hadaad aragto ma aragtay qof walaalkaaga dhulkaaga ku xiyeysiinay masna ku qiimeena qiimaha uu leeyahay waxa mudan adigana ma aragtay in inta qiimaha oo markaas qiimeena adina in ka badan in lamid ah inaad qiimeyso sababtoo anaga dhan waa Soomaaliya nahay kulli wax walba markaas ma aragtay qof anaga masna markaas oo noo soo jeediyay waxyaabo kamid inaad dhulkeena ma aragtay astaantu leeyahay masay waxyaabo faa'iido u leeyahay laga sheekeeyo waxa muhiim anaga dhulkeena inaan mar walba u qiiroona sababtoo dhulkeena hadda mar walba u qiiroona waxay tahay كل بدلي بنانا نقاشيو تندانسي ما أخا تكن تشاو تروفو مكران دوشيدو دولة ديدا دفاع عنيا ومر walba inaan saan dhahno waa daruuri sababtoo guusha waa mid mar walba ku horseedi karto misna ku hogaami karto sababtoo hadaan mar walba inaad guuleysato mis hamigaagu u yahay qof guul gaar inaad noqoto waxa mar walba muhiim ah waxa taa niyad inaad iska dilin sababtoo hadaad niyad mar walba iska disho waxaad noqonaysaa mid aan weligiis guuleysanin laakiin mar walba hadii niyadaada inaad guuleysato ee ku jirto waa daruuri inaad guuleysanayso waad guuleysan doontaa Soomaaliya waxaan leeyahay guul meel walba joogtaan
eryaa heesta waad maqlaysaan waa erya markaas khiiro badan leh misna qofkii maanta inuu dareemo u baahnaa dareemi karo sababtoo ah eri walba oo markaas ku saabsan oo laga hadlayo misna dhulkaaga laga hadlayo waa mar hore inaad ogaataa qiimaha oo ku fadhiyo mise erigaas macnuhu u soo jeedo sababtoo eriyada badi heesta lagu qaadaa waxay yihiin mid markaas uu ka hadlayo dhibaatada markaa waqtiga waddanka ka jirto sababtoo waddankeena dhibaato badan uu soo maray oo silac badan la soo maray maadaama hadda hamigeena uu yahay inaan dawladnimo u tilaabo qaadno dawladnimadana kulli aadaan u jecelnahay ilaahay waxaan leenahay anigoo nabad ilaahay dawladeena kor nagu sii qaado waddankeenana waa jecelnahay oo mar walba garabkiisaan taagannahay mar walbana waa farxadeena qadir baa waa u jeedin wuxuu ka hadlayaa waxay tahay ma aragtay shumacan dameenin adaa igu abuuray misna adaa igu shiday haddaan soo noqowayo misna uu matalaya haddaan dib u soo noqowayo kuwii iga dambeey wuxuu ka hadlayaa waqti xaadirka familkiisa misna Soomaaliya meel walba inaan maanta hadduu ruux walaalkaaga dagaal asigoo ku jiro hadduu ku dhinto waa qofka labaad booskiis bedel laha waa adigaan sababtoo adiga ayaa mar walba dhulka inaad daafacdo loo baahan yahay kan dhintay hadduu dhulkiisu dhinta adigan waxaad mar walba muhiim u ah inaad isku diyaariso dhulkaaga inaad difaacdo sababtoo dhulkaaga waa dhulkaaga qofka dhintay kan nool waa isla leediin dhulkiina wallahi anigoo fadhinaa xataa inaa istaagno ku dhowna sababtoo ah mar walba haddii ka hadlaysid ma aragtay dhulkaaga ayaa waxay muhiim ah u tahay masna calanka buluuga markaad aragto inaad u istaagto waa daruuri sababtoo ah waa midka markaas noloshaada iyo farxadaada iyo hamigaad leedahay ku gaarsiin karo ilaan dhulkaaga horeeya loogu maamahay dal aan dalkaaga ahayn waa dareenku joog Soomaaliyeed meel baa daafaca caalamka joogin waxa idin leeyahay dhulkiinu wada istaaga soo qadar Ibrahim qadar keeyo sheeg walaalaha ku xidhan channelka Umar Keeyo TV bilfada waxaan ka codsanayaa video aan haduu soo gaar inaad share gareyso like to comment waa dhankaaga walaalkay khaalig adiga waxaan ka codsanayaa haddii tahay marka kugu horeysa aad daawato channelka Umar Keeyo TV inaad subscribe taad gambaleelka ku darsiyo aad noqoto team Umar Keeyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala